وأنا wanaagsan dhammaan dadkana daawanaya meel kasta joogtaan kusoo dhawaada halkan TV waa si toos uga daawanaysaan xaruntiisa magaalada Oslo ee dalka Norway. Waxaa kaleeto naga daawan kartaa Facebook page-keena oo halkan TV ah iyo YouTube channel-keena oo isla halkan TV ah. Waxaa kaleeto si toos ah noogala socon kartaa wararkii ugu dambeeyay ee dhibaatadan amaba wararka ugu dambeeyay ee Soomaalida website-keena oo ah halgantvnews.com. haddaba run ahaantii waxaan ka hadlaynaa ama meeshaan usoo fadhiisanay waxay tahay abuuqan dhibaatada badan walwalka badan ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan adduunkaba ku hayo ee ka jira dunida daafaheeda. haddaba gaar ahaan waddankan aan ku noolnahay ee Norway magaaladiisa Oslo waxaa jirta inta badan in walaac badan ummadda Soomaaliyeed ee dunida ku nool ay ka hayso dhibaatooyinka kusoo batay dunida maanta aan kor joogno sababeeyay abuuqan COVID-19 ama coronavirus loo yaqaano. haddaba waxaan rabnaa in aan ka hadalno maadaama ay nala soo xiriireen xaafadan aan deganahay BDL-keeda ee Nushland lamba shantar aan ka deganahay xaafada ah. runaantii waxaa walaac badan laga bixiyay Soomaalida ku nool dalka Norway gaar ahaan magaalada Oslo. waxay nagu qasabtay in aan warbixin kasoo diyaarino si aan ula soconno bal haddaba dhibaatada iyo wareerka laga sheegayo ummadda Soomaaliyeed ma tahay mid jirto. run ahaan qaybo kamida weyihiin wax jiro. waxaan rabnaa in aan informationka annaga ahayno oo horena aan meelaha qaarkood uga maqasheen inaan idin sheegno kana warbixino xaaladda runta ah ee magaalada Oslo. haddaba waxaan booqanay isla xaafadda ugu dhibka badan laga sheegayo ee Soomaalida badan ay ku nooshahay ee Gamalebiyo ama Greenland sidaa u taqaana ee kamid ah xaafadaha magaalada Oslo. waxaa kaleeto dhibaatada inta badan laga sheegay isla xaafad kaleeto oo kamid ah xaafadaha Oslo ka tirsan ahna xaafadaha Soomaalida ee deganaanshaha ama ku noolaanshaha ugu badiyin loo yaqaano xaafada Tooyin. run ahaantii waxaan booqanoo kaleeto ganacsiga Soomaalida ay ku leedahay magaaladan Oslo sida kufeeyada maqaayadaha iyo ganacsiga dukaamada areada ay ugu badan tahay Soomaalida ganacsiga ku leedahay iyo areada ugu badan ee laga sheekeynayo ah inay Soomaalida taagin. haddaba waxaan rabnaa inaan idinla wadaagan warbixintan oo aan rabno inaad daawataan daawasho wanaagsan. halkani waa halbowlaha xaafadda Greenland. waa halka ay ku leeyihiin Soomaalida ganacsiga ugu weyn ee magaaladan Oslo. waxaa ku yaalo dukaaman maqaaxido iyo kufeeyo ay dhalinyarada fadhiistaan. haddaba sida aad u jeedaan halkani waa meesha ugu weyn ee dhibaatada Soomaalida laga sheegayay in ay banaanada taagan yihiin, kufeeyada ay wada fadhiyaan, maqaaxidaha ay wada fadhiyaan, dukaamankana ay furan yihiin. haddaba ishiina waxay idiin qabanaysaa in ay dadka Soomaalida socda halkani ay yihiin dad teel ah. halkani waa meesha ay istaagi jireen Soomaalida, dukaamanka ay kasoo doonan jireen, dhalinyaradana ay u imaan jireen kufeeyada inay ku daawadaan kubadda loo yaqaano isdhexgalka bulshada. haddaba halkani ma joogaan Soomaali aad iyo aad u fara badan. waxaa indhahaaga qabanayaan Soomaali teelteela oo aan moodo in ay soo saartay dano ayaga ay usoo baxeen. haddaba waa la ogol yahay in banaanka loo soo baxo haddii ay dani kusoo saartay. runaantii waxaan halkan ku xaqiijinaynaa inaysan jirin waxyaalaha been abuurka ee Soomaalida laga sheegay inay raxraxamo banaanka u taagan yihiin, kufeeyada ay furan yihiin, maqaaxidii inta badan ay wada furan yihiin, dukaamanka ganacsiga loo soo doonto sida cosmetica, dumarku waxay isku qurxiyaan iyo waxyaalaha kaleeto ee Soomaalida dhaqankooda ah. haddaba dukaamankii kulli way wada xiran yihiin, indhihiina sida qabata ganacsigii inta badan wuu xiran yahay, kufeeyadii aan booqanay kulli way wada xiran yihiin. waxaan la kulanay maqaayadda waa beri oo markaa furnayd sida ay noo sheegeen managementiga amaba dadka mas-uulka ka ah. waxay sameeyeen si habboon oo aan moodo in dadka ayna isku soo dhawaanan ayagoo kala fogeeyay kuraasta. aan moodo in keliya ay fadhiisan karto ilaa 10 qofood loo adeegi karo ama serviceka loo samayn karo. waxaa kaleeto maqaayadda waa beri ay noo sheegeen in isbuuca dambe ee isniinta soo socota ay xiri doonaan ayagoo bilaabi doono cuntada ama raashinka Soomaalida ay kariyaan ama dadka Soomaalida ay kasoo doontaan inay noqon doonto mid la qaato ama sida loo yaqaano takeaway. haddaba run ahaantii halkani waxay indhihiina ku qabanayaan in wax Soomaali ay xaafadda Greenland taagnayn. waxaa kaleeto booqanay xaafadda Tooyin ayada naftigeedana aanan jirin dad inta badan banaanka wada taagan. run ahaantii waxaa moodaa in
wararka turkatayna ummadda soomaalida laga sheegayo ahayna dhibaatada laga sheegayo banaanada ku taagan ayagoo raxan dhalinyarada inta badan ragga banaanka usoo baxa la haysto ayna banaanka inta badan taagnayn warbixintani waxaan usoo duubnay in aan ku caddayno dadka mana-awaalka beenta ah ummadda soomaaliyeed ka nixinaya beenta u sheegayo ummadda soomaaliyeed sharciga iyo dhaqanka ka soo baxay dalka Norway waxaa moodaa in ay u taagan yihiin ayna yihiin mid ku dhaqmayso indhihiina ayaa idiin macalina aad u mahadsantihiin waa anigoo maya moogaa daawade waxaan u malaynayaa inaad daawatay warbixintii aan kasoo diyaarinay xaafadda Greenland rahantii waxaan rabaa inaan ka hadlo qodobka ugu horeeya oo ah please dowladda Norway waxay naga codsatay iyo shacabkeedaba maadaama aan dalka kula noolahay in aan sharciyada amaba xeerarka kasoo baxayo faafintan cudurkan in la yareeyo ee coronavirus inaan noqono kuwo dhagahooda ay u nugul yihiin information badanna aan raadino sida meelo badan lagu soo sheegay waxaa informationka ka raadin kartaa commuunka aad degan tahay Oslo commune oo qayb maxaato u sameeyay coronaviruska aynu ku qoran tahay maxaato luqadda ingiriiska iyo luqadda nooshkaha haddii aadan fahmaynin waxaa maxaato kuu sheegaynaa amaba aan kaa codsanaynaa inaad raadsato qof kuu turjumo labadaas luqadood haddii kugu adag yihiin luqadda waddanka aad degan tahay oo muhiim ah inaad barato amaba aad taqaanaba ama aad ku hadasho inaad luqadda ku akhrisato haddii nooshkaha uu ku dhibaayo ay ku fududeyn karto luqadda ingiriiska inaad ku akhrisato haddii labadaas luqadood ay ku dhibaysana please raadso shakhsi Soomaaliya ee labadaas luqadood yaqaano walow aan aaminsanahay in badan in carruurtiin oo kaleeto ay yaqaanaan luqadda Norwegianka ay idin turjumi karaan walowna aan aaminsanahay Soomaalida degan dalka Norway inta badan inay ku hadasho luqadda Norway haddaba waxay naga tahay informationka mid extra ah si dadka aanan luqadda aqoonin midda Norwegianka iyo Englishkaba ay raadsadaan dad u turjuma amaba informationka ugu dambeeya ee lasoo geliyo waxaa kaleeto informationka ka heli kartaa asaga oo weli cad af Soomaali lagu turjumay hay'adda ama website-ka fhi.no amaba fahi.no ama fahi.no oo aad ka heli karto informationka saxa mar walba midka ugu dambeeyo ee lasoo gelinaya asagana wuxuu ku qoran yahay labada luqadood sida Englishka iyo Soomaaliga Englishka iyo maxaa nooshkaha waxaa ku jiro warbixin ku saabsan nadaafadda oo annagaba idin tusi doono oo af Soomaali lagu turjumay wax badan ummadda Soomaaliyeed u faa'iideyn karto haddaba runaantii qodobka labaad aan rabay inuu ka hadlo waxay tahay sida video ku daawateen waxaan tagnay goobihii ganacsiga Soomaalida waxaan tagnay wadooyinkii inta badan iyo meelaha Soomaalida ay soo istaagto ay iskugu imaadaan runaantii sidaa ka aragteen kufayga amaba kufayada Soomaalida inta badan aan tagnay way xirnaayeen oo aan ugu mahadcelinayno ummadda Soomaalida ganacsatada ah waxaa kaleeto xirnaa dukaamanka dharka dumarka lagu gado ama dukaamanka Soomaalida laga adeegtay waxyaalaha cosmetica Soomaalida laga helo inta badan way xirnaayeen except dhowr dukaan ama 2 ilaa 3 in aan arkay ayaga naftigooda noo sheegay in ay xiri doonaan oo ayna rabin inay sii furnaadaan waxaa kaleeto maqaayadda waa beri oo ayada naftigeeda aan banaanka sidaa ka aragteen sawirka ka qaadnay waxay noo sheegeen maamulayaasha maqaayadda waa beri inay gebi ahaanba maxaato isniinta oo weekend soo soco ama beritaba aba ay bilaabi doonaan take away wax la dhaho ama qaadashada cuntada aanan la fadhiisanin laga cunin maadaama ay noo sheegeen inay jiraan dad badan oo dhalinyaro ah iskaabula ah maxaato aanan cuntada guriga korsan ay shaqeeyo saala socotaan shaqooyinka inta badan lama joojinin oo shacabka caadi u shaqaysan karaan marka sidaas darteed waxay joojinayaan cuntadii la fadhiisinayay ama ay fadhiisanayeen customerka ay ku cunayeen walacad ayagoo noo sharaxay nutusina inay miis walba ay gaarsiiyeen ilaa iyo 1 mitir dadaal ay dadaalayaan si ayna dadka iskugu soo dhawaanin run ahaantii ganacsatada Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed waxaa moodaa in ay ka falceliyeen amaba ay maxaa wax fiican ka sameeyeen ay dhageysteen warbixinadii ka soo baxay sida booliiska magaalada Oslo kommuneyaasha oo wax badan ka qoray balse waxaan rabaa inaan ku darsado dadka warbaahinta ka shaqeeya ama Facebook live ka soo gala warbixinada beenta sameynayo ama soo gelinayo waxa extra
numberka saxda Soomaalida Norway uu ku dhacay cid haysa ma laha tirada runta cid haysa ma laha dhimashada hal qof kaliya ayaa la hayaa meelaha qaarkood waxaa la soo geliyay inay Soomaali badan magaalada Oslo ay ku dhimatay runtii waxaan ka codsanayaa yaan lagu abuurin ummadda Soomaaliyeed naxdin iyo fikir iyo stress tira badan haddii aad ku raadinayso ama aad rabto view badan inaad ku hesho please waxaa ka habboon inaad fiiriso inaad walaalka ama hooyada ama shakhsiga Soomaaliyeed adiga warbixinta ka sugaya inaadan walwal badan ku abuurin please dadka Soomaaliyeed ee degan dalka Norway ama gaar ahaan magaalada Oslo waxaan ka codsanaynaa in ummadda Soomaaliyeed ay ladan yihiin xanuunka uu jiro dad Soomaaliyeed ay ku dhaceen laakiin cid hayso tirada saxda ama numberka saxda lala wareegayo inuu boqolaal Soomaali ay gaarayso intay ku dhacday dhimashada la sheegay ilaa 7 qofood ee Norway cid hubta ma laha ilaa shakhsi aabba Soomaaliyeed oo da ah oo la xaqiijiyay inuu ku dhintay maahan cid kale haysa inaysan jirin ahwa maxaad warbixin baanan inaad soo gudbino marna haddaan bahda halkan TV9 run ahaantii ummadda Soomaaliyeed ee Norway degan sharciga way follow garaysay maqaayadahoodii businessyadoodii ganacsigoodii way wada xirtay ummadda Soomaaliyeed sida video ku arkayseen wadooyinka dad dan ay soo saartay maahane sida laga sheegay in Soomaalida darbiyada taagan ama booliiska loo geeyo lagu yiri kufeeyadii wala fadhiyaan toban ay meelaha u taagan taarun ahaantii videoga ayaa ku cadiyay anagana aan bahdeena saxaafadda isku dayna inaan entertainment badan idin soo gudbino walo aniga meemoga aan ku fikirayo inaan live ku soo noqdo barnaamijyo badan oo idin qosol siinay idinkan sida barnaamijka tijaabi calafka aad ma sitiin aan ku dadaano caafimaadka ilaahayna aan barino culimada Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa waqti lagu jiro akrin yahay ina ilaahay barino barisaan gacmaha kor u taagno sujuudi iyo salaada markaan ku jirnana ilaahay iyo taqwadiisa aan badino waa ilaahay barino inuu ilaahay naga qaado dhibkan ummadda dunida daafeed ku qabsaday especially dadka muslimka ah gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed walaalkii meemoog oo idin leh inta barnaamijkan oo kale ku kulmi doono salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh stay clean fayraska corona ee cusub COVID-19 baryahan waxaa aad loola socdaa fayraska corona ee cusub cudurka COVID-19 waxa uu inta badan keenaa xanuun fudud dadka qaar gaar ahaan dadka waaweyn ama kuwa xanuuno kala qaba ayaa aad u xanuunsan kara sidaa darteed waxaa muhiim ah in qof kasta uu ka qayb qaato sidii loo hakin lahaa in cudurku bulshada ku faafo haddii aad qaaday cudurka waxa ay qaadan kartaa eber ilaa 14 maalmood inta aad dareemaysid calaamadihiisa inta badan waxay qaadataa 5 ilaa 6 maalmood marka uu qofku qabo calaamadaha cudurka ayay ugu sahlan tahay in cudurka la isqaadsiiyo qandho xumad qunfac iyo neefsashada oo cuslaata ayaa ah calaamadaha inta badan la isku arko dadka in tiradoodu yar tahay waxa ku yimaada caabuq ku dhaca sanbabada oo ku keena neefsashada oo ku adkaata ama xanuun kale oo daran waa in aad samaysid waxyaalahan si aad uga hortagtid qaadista cudurka ka durug dadka guriga joog haddii aad dareemaysid xanuun guriga joog haddii lagu sheegay ku jirid karantiino ama gooni u bixid isku day in aad 1 mitir ka fogaatid dadka kale haddii ay suurtagal tahay ilaali nadaafadda gacmaha si fiican u dhaq marar badan marka aad dibadda la joogto dad kale markaad isticmaashid musqusha marka aad qunfacdid hindhistid ama sanka iska seemisid marka aad rabto inaad cunto samayso ama inaad cuntaysid haddaad haysan saabuun iyo biyo waxaad isticmaali kartaa alkolada infection tirista ilaali nadaafadda qunfaca dadka kale kala fogow qunfaca ama hindhisada ku qunfac istiraasho aad markaa tuuraysid kadibna dhaq gacmahaaga haddii aanad haysanin istiraasho waxaa habboon inaad ku qunfacdid laabka xusulkaaga haddii aad u malaynayso inaad qaaday cudurka haddii aad tuhmaysid inaad qaaday cudurka waa inaad joogtid guriga haddii aad u baahan tahay gargaar caafimaad marka hore dhakhtarkaaga ka wac taleefanka haddii ay socon weydo wac isbitaalka degdega ah oo taleefankiisu yahay 11 617 la soco wararka cusub
dowladdu waxay dhammaan dadka degan Norway ka codsanaysaa inay akhriyaan macluumaadka iyo talooyinka muhiimka ah ee ku saabsan fayraska corona oo laga helayo shabakada FHI.NO iyo helsenorge.no. markasta waxaa imanaya talooyin cusub. macluumaadku waxay ku qoran yihiin af Norweji iyo Ingiriisi. haddii ay kugu adkaato in aad fahantid macluumaadka, waxaanu kaa codsanaynaa inaad raadsatid qof aad taqaanid oo ku caawiya.